magacaabista golaha wasiirada ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane xamse cabdi barre markii uu arkay qodobka 97 faqradiisa saddexaad ee dastuurka ku meel gaarka ah markii uu arkay qodobka 98aad faqradiisa xarafka a iyo ba ee dastuurka ku meel gaarka ah markii uu arkay qodobka 100aad xarafka a iyo ba iyo a ee dastuurka ku meel gaarka ah markii uu arkay ra'iisul wasaaruhu howlaha baaxadda leh ee hor yaalla xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya markii uu tixgeliyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka markii uu garowsaday baahida loo qabo magacaabista golaha wasiirada ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaruhu waxa uu magacaabay qodobka koowaad xubnaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaana ay kala yihiin sida soo socota mudane Saalax Axmed Jaamac ra'iisul wasaare ku-xigeen mudane Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur wasiirka wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta mudane Xasan Macallin Maxamuud wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka mudane Axmed Macallin Fiqi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta mudane Dr. Cilmi Maxamuud Nuur wasiirka wasaaradda maaliyadda mudane Cabduqaadir Maxamed Nuur wasiirka wasaaradda gaashaandhigga mudane Abshir Cumar Huruuse wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Faarax Sheekh Cabduqaadir wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare mudane Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax Beene wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha General Abdullaahi Axmed Jaamac Elkajiir wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Marwo Fardowso Cismaan Cigaal Dhoore wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo cirka iyo dhulka mudane Jaamac Xasan Khaliif wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta mudane Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa mudane Jibriil Cabdirashiid Nuur Xaaji wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha mudane Ismaaciil Cabdiraxmaan Sheekh Bashiir wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Marwo Qadiijo Maxamed Diiriye wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka mudane Dr. Cabdirasaaq Cumar Maxamed wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta mudane Dr. Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe wasiirka amniga gudaha mudane Axmed Madoobe Nuunow wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka mudane Dr. Cali Xaaji Aadan wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada mudane Axmed Xasan Aadan wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda mudane Daawud Aweys Jaamac wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska mudane Biixi Iimaan Cige wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha mudane Jaamac Takhal Cabbaas wasiirka wasaaradda korontada iyo biyaha mudane Maxamed Barre Maxamuud wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo Marwo Khadiija Maxamed Al-Maqzuumi wasiirka wasaaradda bii'ada iyo isbeddelka cimilada qodobka labaad xubnaha wasiir dowlayaasha
mudane abshir maxamed axmed abshir bukhaari wasiiru dowlaha madaxtooyada mudane xirsi jaamac gaani wasiiru dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha marwo muumino sheekh cumar wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka mudane ilyaas cali xasan wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta marwo raaxo maxamed maxamuud janaqow wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda mudane cabdinuur daahir fiidow wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga mudane cali maxamed cumar wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga marwo nuura mustaf guudow wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare mudane cabdirashiid jire qalinle wasiiru dowlaha wasaaradda qorshaynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha mudane maxamed cabdiqaadir maxamed wasiiru dowlaha wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda mudane maxamed cali cumar caananuug wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka mudane axmed cusmaan diiriye wasiiru dowlaha wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta mudane doctor sulaymaan cali xuseen wasiiru dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa mudane cabdisalaam shariif xuseen wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha generaal bashiir maxamed jaamac bashiir goobe wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta marwe aamine xasan cali wasiiru dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka doctor maxamuud axmed maxamuud mashruuc wasiiru dowlaha wasaaradda batroolka iyo macdanta maxamed cali xagaa wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha amniga gudaha mudane asad cabdirasaaq maxamed wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka marwo maryan maxamed xuseen wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada mudane maxamed bashiir cali baxnaan wasiiru dowlaha wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda mudane yuusuf maxamed aadan wasiiru dowlaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha mudane maxamed cabdulaahi faarax wasiiru dowlaha wasaaradda korontada iyo biyaha mudane doctor aadam ibraahim awxirsi wasiiru dowlaha wasaaradda bey'ada iyo isbeddelka cimilada qodobka saddexaad xubnaha wasiir ku-xigeenada xukuumadda cusub ee federaalka mudane saalax shariif sayid cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta mudane axmed cabdiraxmaan xasan wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka mudane cabdixakiin xasan ashkir wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta mudane cabdiqafaar cilmi xaange wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda mudane cabdifataax qaasim maxamuud wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda mudane cabdifataax qaasim maxamuud wasiir ku-xigeenka halkaan ku celiyo mudane cabdiqafaar cilmi xaange wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda mudane cabdifataax qaasim maxamuud wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga mudane isaaq maxamuud mursal isaaq fanax wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane axmed cusmaan ibraahim daqare wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare mudane maxamed cabdiqaadir cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha mudane saadaan maxamuud cabdi wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda mudane generaal sulub axmed firin wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka
mudane xuseen axmed culuso wasiir ku-xigeenka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta mudane aadan maxamed cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa mudane cismaan maxamed cabdi daalo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha mudane maxamed cali maxamuud tam wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta mudane cabdixakiim jimcaale aadan wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka mudane cabdiwahaab cabdi cumar caananuug wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta mudane isaaq maxamed maxamuud obow wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha waa wasaaradda amniga gudaha mudane isaaq maxamuud obow waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha marwo sahre yuusuf cige wasiir ku-xigeenka beeraha iyo waraabka mudane doctor maxamed xasan maxamed bulaale wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada mudane cali ifiye cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda mudane cabdiraxmaan yuusuf cumar alcadaala wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska mudane cismaan libaax ibraahim wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha mudane ibraahim maxamed cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda korontada iyo biyaha marwo fahma axmed nuur wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo ugu dambeyntii mudane doctor saciid maxamed cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda bii'ada iyo isbeddelka cimilada wasiirada cusub ee la magacaabay maanta waxaa la farayaa in ay si degdeg ah ay ula wareegaan xilalkooda kadib marka la dhaariyo wasiirada الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين مدن يالي مروين دمان ومد الصوماليات ميل كستو أي جوغان waxaa sharaf weyn ah in maanta oo ay taariikhdu tahay 2 bisha 8 2022 hortiina soo istaago si aan idinku soo bandhigo golaha xukuumadda cusub ee aan hogaamin doono insha Allah mudanayaal iyo marweyn walaalayaal dadkeenu waxay ku jiraan marxalad adag oo ay la daala dhacayaan amni darro iyo abaaro daba dheeraad marxaladan adag waxaa laga maarmaan ah in la helo xukuumad xilkasa oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed samata bixin karta mudanayaal iyo marweyn walaalayaal wada tashi dheer oo qaatay dhowr iyo 30 maalmood kadib oo aan la yeelanayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya guddoonka labada aqal ee baarlamaanka xubnaha labada aqal ee baarlamaanka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed waxaan ku faraxsanahay in aan soo bandhigo wilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo aan u soo xushay kuna soo xushay aqoontooda khibradooda kartidooda iyo hufnaantooda kuwaas oo aan rajaynayo in ay ka jawaabi doonaan baahida marxaladda waxaana rajaynayaa in ay ku guuleysan doonaan in ay Soomaaliya cusub ay dhaba cusub u jeexaan ayagoo aan aaminsanahay in ay hirgelin doonaan barnaamijka weyn iyo aragtida weyn ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo halku dhagiisu yahay Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la waxaan si xushmad
iyo karaama ku dheehan tahay uga codsanayaa golaha shacabka ee sharafta leh in ay ansixiyaan xukuumadda cusub oo aan ugu magac daray xukuumadda dan qaran iyo barnaamijkeeda oo aan si degdega u horkeeni doono. ugu dambayn waxaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ugu baaqayaa in ay soo dhaweeyaan lana shaqeeyaan xukuumadda cusub ee dan qaran si ay u gudato waajibaadka qaran ee culayska badan. aad iyo aad u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullah. intaas kadib waxaa insha Allah bayaanka magacaabida inoo akhrin doona afhayeenka xukuumadda mudane Farxaan. waa mahadsan yahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre khudbadaasi qiimaha leh ee uu soo jeediyey ee ku tacalluqtay muddadii uu wada tashiga dheer uu sameeyey ra-iisul wasaaruhu si markaasi uu u soo dhiso xukuumaddan maanta aynu ku dhawaaqi doono oo ah xukuumad tayo leh sida ra-iisul wasaaruhu uu sheegayna ummadda Soomaaliyeed ka samata bixin doonta dhibaatooyinka hadda haysta. marka mar labaad sharaf bay ii tahay maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 2 bishan August in aan liiska halkan uga dhawaaqo golaha xukuumadda ama golaha wasiirada Soomaaliya.